Ninkani waa fanaan Soomaaliya oo darbi jiif noqday. Mar ayaa laga daba dhacay oo heesihiisa aad loo jeclaa. Haddase waqtiga ayaa ka daba yimi. Waa 60 jir labada gacmood laga gooyay. Wuxuuna ka dawarsadaa waddooyinka Minneapolis ee Mareykanka. noloshu mar bay ku saacidaa samadaa ku geysaa carruur iyo cirooleba lagu wada ciseeyaa haddana dhulkay kugu tuurtaa oo taxta sifir bay ku geysaa sida fanaankan oo kale oo ka mid ahaa fanaaniintii ay mar u jidnayd magaalada muqdisho isla markaana dadku doondooni jireen lacagna lagu bixin jiray araggiisa kaasi oo shidan jiray masraxa qaranka ee National Theatre. naftan howla duula oo waayimayse waxaad aad u hanaato ma hubtaa ma helaysaa naf jacayl hale aad u hanaato ma hubtaa ma helaysaa fanaankii darbi jiifka noqday cabdulqaadir cali sow qanciye oo ka mid ahaa fanaaniintii loogu jeclaa Soomaalida kana tirsanaa hooballadii qaranka gaar ahaanna kooxdii iftiin ee wasaaradda waxbarashada ayaa maanta noqday darbi jiif noloshu ku adag tahay isla markaana ku dayacmaya oo duruufaha adag ay hoy ugu noqdeen waddanka Mareykanka oo ka mid ah wadamada loogu jecel yahay in lagu noolaado ama loo dalxiis tago kuwaasoo muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed iyo kuwa Afrikaanaba ay u haajireen oo u nolol raadsadeen. cabdulqaadir cali sow qanciye ayaa mar ka mid ahaa fanaaniintii calawalayn jiray isla markaana tiyaatarka qaranka uu u shidnaa oo dad badani ay ku soo xoomi jireen habeenka la soo dejiyo inuu hees ama riwaayad leeyahay. burburkii waxa uu taariibay qurbaha si uu u helo nolol u qaranta iyo goob ammaan ah balse wuxuu noqday darbi jiif waayuhu ay ciileen fanaankan oo ay aad u jeclaayeen Soomaalidu balse gadaal laga ilaaway. In badan Soomaalida Minnesota ayaa waddooyinka ku dhaafayay fanaankan oo dawarsanaya xoogaa lacaga oo uu cunto ku iibsado. Balse nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdisalaan oo muuqaal ka soo duubay ayaa dadkii ay isku jiilka ahaayeen dib u xasuusiyey waayihiisii wacnaa ee berisamaadkii isagoo codkiisa aad loo xiiseeyo. Dadkuna ay jeclaayeen inay arkaan xilli ay dhif iyo naadir ahayd in TV la daawado. laakiin waxa suuragal ah qaarkiin inaad ku raaxaysataan codkiisii dareenka iyo guuxa lahaa isla markaana dahabiga ahaa oo aadka loo jeclaa markuu qaraanka ku heesayo. maanta se waa darbi jiif waayuhu ciileen noloshu ku adag tahay dareemaya darxumo ciil iyo caro una baahan garab istaag miyaysan mudnayn kuwii shalay jeclaa codkiisii macaanaa iyo waayihiisii samaa inay maanta garab istaagaan oo kaalmeeyaan. Durba waxaa kuu muuqanaya in afgembi uu ku dhacay mustaqbalkii fanaanka Cabdulqaadir cali sow qanciye oo fadhiga looga kici jiray markay taageerayaashiisu arkaan. Waxaan ku tilmaami karnaa mid ka mid ah fanaaniintii magacoodu lumay markii ay burburtay dowladdii kacaanka oo gacanta ku haysay hooballadii qaranka. Kaaga sii daran in xubnaha jirkaaga ugu muhiimsan laga gooyo adoo darbi jiif ah. Qabowga daran ee Mareykanka ayaa sababay in farihiisu ay barafoobaan, sidaa darteedna laga gooyo qaybo ka mid ah labada gacmood.